ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وكريم عطائه وجوده وشرفه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynoo soo socday silsiladii ducooyinka. ducada aynu caawa baranayno oo ah ducada 22aad waxaynu kasoo dheehanaynaa suuratu taxriim aayadda 8. إلهي سبحانه وتعالى وحليه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ducadeenu waxay noqonaysaa markaa rabbana atmim lana nuurana waqfir lana innaka calaa kulli shayin qadiir. macna ahaan waxay noqonaysaa rabbana rabbigayow atmim lana noo dhammaystir nuurana nuurkeega waqfir lana rabbiyow noo dembi dhaaf innaka adiga calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun awoode. si aynu sila fahamno nuurkan ay muuminiintu ku ducaysanayaan ee ay leeyihiin noo dhammaystir, waxaynu eegaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mar la weydiiyey oo lagu yidhi ummadaada maxay ayaad ku garanaysaa, oo ummadihii laga soo bilaabo nebi nuux ummadiisii ilaa ummadaada kumanaan ummadood ayaa u dhexeeyay. marka ummadaadu sideed ku garanaysaa, ummadaha kale aad ka garanaysaa? nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qurun muxajaluun min athari lwuduu. waxaan kaga garanayaa ummadayda ummadaha kale qurun muxajaluun. sifooyinka wasiya waxaa ka mid a qurun muxajaluun oo micnaheedu tahay alquru lmuxajal waxaa layidhahaa faraska asiilka ama asalka ee waxaweyaan midabkiisu uu isku mid yahay laakiin ay ka duwan yihiin meelo kamida jirkiisa ay ka duwan yihiin midabkiisa inta kale, sida jabhadiisa oo kale oo hadduu farasku madow yahay oo jabhada uu cadaan ku leeyahay ama lugaha qayb ka mid uu cadaan ku leeyahay, waxay ka dhigaysaa wax uniika oo uu kaga duwan yahay fardaha kale. marka sidaas leeg buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ummadaydu waxay kaga duwanaan doontaa ummadaha kale meel kasta oo weysadu ay ka taabatay markay salaada oogayeen ee adduunka joogeen. maalinta qiyaame iftiin bay u noqonaysaa. meel kasta oo weysadu ay ka taabato iftiin baa kasoo baxaya ay ku socdaan oo haga maalinta dhibka iyo madowga iyo mugdigu ay jiraan. waxaan ku kala ku garanayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam min athari sujuud, raadkii sujuuda meel kastoo ay ka sujuudi jireen oo ay dhulka dhigi jireenna maalintaa calaamad u khaasa oo waxaweyaan iftiin kasoo baxo oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku garto ayay noqon doonaan. marka mu'miniinta rabbana atmim lana nuurana, nuurkiis la fahamnay atmim lana bay odhanayaan marka ilaahu noo dhammaystir. si aynu u fahamno في سورة الحديد آيات 12 إلهي سبحانه وتعالى وحينو صوريا مشهد كمدا أما موقف كمدا موقف يدا مالنتها داعية وحينو صوريا لما فرقادود وحويا قوم ودا السعودي ومركلي لصو ودا بعثي ولا صو صاري لكن وافتين كاسي كلا الريبي أي إلهي سبحانه وتعالى إنو شرحيا أما إنو تسياسي إنو فهمنو. إلهي سبحانه وتعالى وحكوليه في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آية دمات كذا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات مالنت هذا أركي دونتو مؤمنين ترقى يكو دمركا يسعى نورهم بين أيديهم ويفتين كودو وحويا هرتودا صعدو بين أيديهم وهرتودا وصعدو مقعمودا هرتودا وبأيمانهم يمدقيدودا وملايكتو يكورنيسو بشراكم اليوم ما أنت بشاريستا جنات وحدكو بشاريستان جنوين تجري أي هو صعنيسو من تحتها الأنهار وبيالي أي هو صعنيان. marka ilaahay subxaana watacaala mowqifka markuu inoo sawirayo wuxuu inoogu soo sawirayaa conversation baa dhex mari doona ama wada hadal mu'miniintii iyo munaafiqiintii. markaasuu ilaahay subxaana watacaala aayadda ku xigta wuxuu leeyahay yowma yaquulu almunaafiquuna waalmunaafiqaat, maalinta ay kuwii munaafiqiinta ahaa ee ragga ahaa iyo dumarkii munaafiqiinta ahaa ay ku odhan doonaan liladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay ee marka ay wada socdeen unduruuna naqtabis min nuurikum, nasuga
aanu idinka iftiin qaadane aan iftiinka idinka shidane nasuga marka waxaad arkaysaa in yagii markii la soo wada baxay qoladan dam ay noqotay munaafiqiinta mu'miniintina ay iftiimeen marka maadaama ay munaafiqiintan markay adduunka joogeen dad muslimiin ah oo wax weeyaan ummadda akhyaarta ah ee ummadda ku dhex jirta ee la iswada garanayo ay ahaayeen maalintaasay ku baraarugayaan inaka iftiinkeedii maxaa ku dhacay marka xoolaha qoladan weydikii wada socday adduunkan isku yaqaanay warbalnimo yahow nasuga oo aanu idinka dabshidan mar haddii anaka iftiinkii naga baktiyey meeshan madowgaa la mari kari maayeen nasuga bay markaa odhanayaan marka si jeesaba waxay ugu odhanayaan qiila irjicuu waraa'akum gadaashiina u noqda gadaashiina oo yacni adduunkii oo ay ogyihiin inaanay u noqon karin oo awood aanay u lahayn ayay odhanayaan gadaashiina u noqda faltamisuu nuura oo kasoo daya ama yacni bal soo eega inaa iftiin kasoo heshaan ilaa aayadda dhammaadkeeda markaasuu ilaahay subxaana watacaala wuxuu ina tusayaa qoladaasi iftiinkoodii siday ku waayeen buu ilaahayna tusayaa marka waxay weeyaan markii ay yidhaahaan dib u noqday arkaan in qoladii munaafiqiinta ahay mu'miniintii ku jeesjeesayaan oo nin waliba waxa weeyaan iftiinkiisii yaraa uu isagu leeyahay ilaahay uu igu badbaadi sallim yaa rabbi sallim ayay odhanayaan markaa intay yaabaan warso idinkii dadkan ka midka ahaa ee muslimiinta ahaa ee ag joogay la noolaayeen la cunayay maxaa idinku dhacay marka munaafiqiintii baa yeedhay waxay odhanayaan yunaaduunahum alam nakum macakum miyaanan yacni maciina ahayn oo idinka mid ahayn markaan adduunka joognay imika aynaan soo wada bixin oo aynaan wada socon marka mu'miniintii baa waxay ku odhanayaan qaaluu bala maya waa sidaad sheegteen walaakinakum idinku sababta uu idinka damay nuurkani waxa weeyaan fatantum anfusakum nafihiinii baa fitnayseen oo meel kasta oo iimaankiinu ku daciifayay oo muslimanimadiina wax yeelaysay oo caqiidadiinu hoos ugu dhacaysay ayaa fitnayseen oo iska gasheen waxba yeeli mayna dad islaama baynu hadhow baynu toobad keeniyey iska maquura intaa kumaydi joogina watarabastum waa isdhigateen oo waa isla hadheen berri baan toobad keeni saadan baan toobad keeni waxa weeyaan wartabtum markii dambena waaba shakideen oo falsafad baa la timaadeen oo islaamku wax walba waad keenayaa maxaa waxaan loo xaaraantinimay maxaa waxaan loo ilaa shaki idinka galay wujuudkii ilaahay iyo diintan inay xaq tahay oo dabadeetana aad isdhigateen waqaradkumul amaaniy dabadeetana waxaa idin hoday rajadii berri baa hadhay saa dambe weli waan yarahay waan weynaan doonaa insha allah sanadka dambe ramadaanta dambe ilaa heerka aad gaadheen markaa sidaasaydu ku weydeen nuurkiinii balde adduunkii dib ugu noqdo oo kasoo dabshita marka nuurkii waxa weeyaan sida loo waayayo ayuu ilaahay subxaana watacaala suuradda kale inoogu cadaynaya isagoo waxa weeyaan inoo tusinaya mowqif ka mida mawaaqifta maalintaa dhici doonta dee mufasirad ma yihi anigu oo waxa weeyaan waxaa ku xaqle inay fasiraan dad cilmiga tafsiirka yaqaana laakiin nuur kanuunsaynu isula fahmno ay mu'miniintu leeyihiin rabbow noo dhammaystir ayaan aayadahan kale usoo qaatay rabbanaa atmim lanaa nuuranaa rabbiyow noo dhammaystir nuurkayaga waqfir lanaa noo dembi dhaaf marka nuurkani waxa weeyaan adduunka markaan joogno rabbow nuurna sii oo dee waxa weeyaan dariiqayaga noo nuuri oo waxaan wax ku garano iyo aqoon aanu saxa iyo khaladka xaqa iyo baatilka ku kala garanana siiyo rabbow na hadee oo na gacan qabo oo noo dhammaystiro qabriga markaanu galana rabbow noo nuuri qabriga oo iftiin nooga dhig oo waxa weeyaan midaanu rawdatu min riyaadiljanna rabbiyo nooga dhigo nuurku yaanu naga demin oo adduunku kaliya yaanu ku koobnaanin atmim lanaa rabbiyo noo sii dhammaystiro markaadna soo saarto maalintaa rabbow ha naga dhigin kuwa gudcur gudaya ayay markaa ku ducaysanayaan marka itmaamka inuu nuurkani dhammaystirmo oo adduunka kasoo bilaabmo oo qabriga ku xigo oo qiyaamuhu ku xigo ayay mu'miniintani ayay markaa ku ducaysanayaan waad arkaysaa markaa ducadu intay qiimo leedahay iyo siday u xeel dheer tahay ilaahay subxaana watacaala mar uu inoo sheegayey siday usoo xaadirayaan mu'miniintu yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda maalinta ay soo xaadirayaan in lasoo xashrinayo dadkii ilaah ka cabsiga lahaa wafda iyagoo wafdiga maxaad ku taqaanaa wafdi baa dal kale nooga timi oo dal ka timi dee wafdigu waa dad la hogaaminayo oo waxa weeyaan la barbar socdo oo lasoo dhaweynayo soo dhaweyn oo magacooda la weyneynayo oo waxa weeyaan la marti qaadayo saasi leeg markay soo baxaan ilaahay subxaana watacaala soo xashrinayo wuxuu sidii wafdigoo kale ayaa loo soo dhaweynayaa malaa'ig baa ka hortegaysa rakab iyo waxa iyagu u khaasa oo ay korayaan ayaa jira xataa cagahooda kuma soconayaan malaa'igtiisi dee marka ay jannooyinka ku gaarsiinayaan ilaa lagu odhanayo allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun
habaqina hana cabsoonina kuna bushaaraysta oo idinkaasoo waa joogtaan jannadii ilaahay subxaana watacaala idinku ballan qaaday oo aad qeybka ku rumayseen ee usoo shaqaysateen. marka nabigu calayhi salaatu wasalaam isaguna nuurka uu ku ducaysan jiray oo ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday waxaa ka mid ah allahuma ajcal fii qalbii nuura wafii samci nuura wafii basarii nuura wazidnii nuura wazidnii nuura wacan yamiinii nuura wacan shimaali nuura. ducasaa u dheer waxaweyaan mar haddii ilaahay uu ku siiyo nuur oo caqliga iyo qalbiga uu ku nuuriyo aqoon baad wax ku garataa. waxaweyaan xaq baad garta ku goynaysaa, xaqa iyo baatilka ayaad kala garanaysaa, wixii xumaanaad ka joogaysaa, wixii wanaagaad raacaysaa, laanno ilaahay subxaana watacaala nuur buu ku siinaya. marka nuurka inaad ilaahay weydiisatid oo weliba nuur kaliya isii maahay, atmim lanaa rabbiyow noo dhammaystir. adduunyada nuur nagu sii, qabriga rabbow nuur nagu sii, qiyaamaha rabbow nuur nagu sii, ilaa aan jannooyinka ka galayno ayay ka dhigan tahay ducadani. waa duco aad iyo aad u camiiqa oo u xeel dheer. haddaan ku celiyo rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir. rabbanaa rabbigayow atmim lanaa noo dhammaystir nuuranaa nuurkayaga, waqfir lanaa noo dembi dhaaf, inaka adiga calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun qadiir ah. marka magaca ilaahay ee ay ku baryayaan waxaweyaan waa ismillaahi alqadiir, ilaaha awood badan ah. waxaweyaan adduunkana rabbow adaa nuurkaa na siin kara, qabriga adaa noo joogteen kara, qiyaamaha adigaa noo joogteen karaya. ee rabbiyow qudradaada iyo awoodaada ayaanu kugu barinaya, noo dhammaystir ayay la micno tahay. ducada haddaan mar kale ku celiyo rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir. rabbanaa rabbigayow atmim lanaa noo dhammaystir nuuranaa nuurkayaga, waqfir lanaa noo dembi dhaaf, inaka adiga calaa kulli shayin qadiir. sida suuratulxadiid markaa ku sugan ilaahay subxaana watacaala markuu inoo sheegayo fatantum anfusakum watarabastum wartabtum, wax kasta oo iimaankaaga dhaawacaya oo caqiidadaada waxaweyaan wax u dhimaya inaad ka fogaatid oo aanad isdhul dhiganayso. waa iska caadi maadaamaad qof mu'mina tahay oo muslina tahay, waad awoodaa, waad iska caabin kartaa in laga fogaado si nuurkaasi aanu ilaahay subxaana watacaala inooga xayuubin oo aynaan u waayin. marka rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir. rabbanaa rabbigayow atmim lanaa noo dhammaystir nuuranaa nuurkayaga, waqfir lanaa noo dhaaf dembiyadayada, inaka adiga calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun awoodu leh. هذا وصلوا وسلموا على أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا طيبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.